السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سو دوادا مركله وان idinka raali gelinayna cilad farsamo oo nala soo diristay ayaa jirtay oo aan jecelnahay inaan ka cudur daarano martida nala joogta iyo dhageystayaashii aan u ballan qaadnay doodan sida tooska ah boggeena oga baxaysaba waxaan jecelnahay mar kale inaan dadka xasuusino mawduuca doodeenan in uu yahay caawa arrimaha abaaraha weliba waxaan jecelnahay qodobka aan ku qaada dhigeena inuu yahay muwaadinka ma helaa digniinaha khataraha abaaraha iyo daadadka waxaan jecelnahay intaanan wax kale u gelin mawduucan warbixin sharaxaad dheeri ah ka bixinaysa oo uu ka diyaariyey cabdifataax cabdille ka dhaca abaaro daadad iyo biyo la'aan soo noqnoqda kuwaas oo saameeya dadka dunyada iyo weliba nolosha maalinlaha ah waxaa isweydiin mudan dadku ma yihiin kuwa ku baraarugsan khatarahaasi dhanka kale dadku ma helaan wararka hordhaca ah ee la xiriira khataraha soo socda si ay iskugu diyaariyaan ulana falgalaan abaaraha iyo fatahaadaha doodeena caawa waxaan ku faaqidi doonaa helitaanka digniinaha hordhaca ah ee la xiriira abaaraha iyo daadadka Soomaaliya ka dhaca dooda baraarug waxay ku saabsan tahay sida dadku u helaan fariimaha digniinaha hordhaca ah iyo sida ay uga caawin karto inay ka badbaadaan saamaynta musiibooyinka sida abaaraha doodeena waxay u furan tahay cid walba codkaaga iyo weliba khibradaadu waxay badbaadin karaan dad badan oo ay abaaruhu si ba'an u saameeyaan isla markaasna waxayna fahamsiin doontaa sida digniinaha ku saabsan khataraha ay u gaaraan bulshada iyo deegaanada aad ku nooshahay doodani waxay ka baxaysaa 15 idaacadood oo ku kala yaala gobolada dalka Soomaaliya codkaagu waa noo muhiim doodana si toos ah uga qayb qaado sidoo kale waxaad fariintaada gaaban noogu soo diri kartaa lambarka gaaban ee 28 eber dirista fariintu waa lacag la'aan waxaadna ka soo diri kartaa Hormuud iyo Goolis sidoo kale waxaad noogu soo diri kartaa dhanka WhatsApp-ka lambarka 2527 eber 66644 Cabdirasaaq cabdifataax aad baad u mahadsan tahay doodeena caawa sidii mawduuca aan ku sheegnayba ha ilaawina inaad ka qayb qaadato martida caawa nala joogta aan ku bilaabo cabdiraxmaan maxamed dhiriq wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo nala fadhiya istuudiyaheena magaalada Nairobi Dr. Khaliif Xasan Xareed cilmi baare wax badan ka og abaaraha dalka Soomaaliya ku soo noqnoqday Ahmed Cabdi Cismaan beeraley degan degmada Afgooye gobolka Shabeellada Dhexe saddexdiinaba ku soo dhawaada doodeena baraarug bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay teamka baraarug aad u mahadsantihiin waa dood runtii aad u qiimo badan soo dhaweynaya barnaamijkan ka qayb qaadano oo mahad celinaya teamka ka qayb qaadanaya kale Dr. Khaliif iyo Dr. Ahmed iyo aad u mahadsantihiin أحمد يا خليف إذن كنا سود وهذا صوماليا خدك توصل جرتان ودونا وري عطاش أذيك وسيركي أصحاب هذا نجا مغليسة وهبي ونكسر رمضان كريم وأنا كمان سنتي برامج كانت حلقة مهمة كوسو هذا السنة السلام عليكم بعد بدو ما ستين وحقاك موادين كمهلا فريمها اللوجة دي أجارها وموضوع عن رمضان إن سفي عن عوا أو سعد ببرسنو إن شاشة اللمبر بصارن أو واتساب عدكاga ku reebi kartaa mawduuca waxa weeyaan marka la hadaan ku celiyo muwaadinka ma hela digniinaha qataraha kadiga ee abaaraha iyo daadadka sida aad ku maqlayseen sharaxaadii cabdifataaxba abaaro badan baa dalka ka jira oo runtii aad looga dayrinayo wasiirka gargaarka Jubbaland baa ila jooga oo isaga galabta ka soo noqday dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado degmada Doolow oo dhowr maalmood ay halkaas ku sugnaayeen cabdiraxmaan maxamed dhiriq saacadtu wasiir ku soo dhawaad doodeena baraarug hal daqiiqo waxaad naga siisaa waxaad soo aragtay kadib su'aalahan u gali doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa masantahay Atoosh sidaad sheegtayba 1 minute ama 2 minute baan ku soo koobayaa deegaanada Jubbaland waxaa ka jira runtii abaar aad u daran abaartaasi Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa iyo geeska Afrikaba Jubbaland runtii culays weyn iyo arrintaas naga ka haysata abaarta dhammaan saddexda gobol ee Jubbaland ka kooban tahay abaartu ka jirtaa saameynteedu aad bay u daran tahay dadka iyo xoolaha way saameysay biyo la'aan badan baa jirta biyo la'aan badan cunto la'aan baa jirta barakac badan baa jira
labadii bilood hadda u dambeeyey ilaa bishii koowaad iyo bishan hadda ku dhex jirraba waxaa waday safarro aan ugu kurgelaynay xaaladaasi oonu dadka ku wacyigelinaynay oonu ku abaabulaynay waxaanu tagnay degmooyinka Doobley degmada Afmadow degmada Badhaadhe degmada Ceelwaaq degmada Doolow oo aanu maanta ka soo baxnay tiimkanagii guddida abaaraha guddida gurmadka abaaraha ee madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay wasiirka biyaha oo qayb ka ahaa iyo aniga iyo tiim kale waxaanu ku saaranay runtii xaalad daran oo aan runtii aad suuraysan karin oo duruuf adag ah oo deegaanadaas ka jirta waxa noogu muhiimsan aan u tageynana waxay ahayd dowladda Jubbaland waxay magacawday guddida gurmadka abaaraha waxaan samaynay guddi heer degma oo degmooyinka Jubbaland hadda ka wada dhaqangalay inaan markaa isku xidhu samayno abaabul ka samayno u kurgalasay shaqooyinka u socdaan gurmashada dadka ah yaanu waxa weeye barnaamijkaasi u tageynay deegaanadaasi waana sii wadi doonaa insha Allah degmooyinka dhimanayna wasiir aad baad u mahadsantahay su-aasha koowaad ee mawduuceena caawa haddaan u galno waxa weeyaan cabdiraxmaanow digniin hordhaca marka la yidhaahdo oo ka digaysa abaaro soo socda maxay tahay bal tusaale naga sii ma digniinaha dhaqanka ee qiyaasta xilliyada guga dayrta xidiga waxa loo yaqaanaa mise waa digniinaha cilmiga ku dhisan waa mahadsan tahay runtii dhulkeenna Soomaaliya si guud ahaaneed laba khatarood oo waaweyn baa runtii mar walba dadkeenu la daala dhacayaan oo mar walba soo laalaabta waa khatarta abaarta iyo khatarta fatahaadaha waad ogtiin waxay ka dhacay waddanka Soomaaliya 2023 bilowgeedii taas oo runtii saameyn badan yeelatay haddana abaar weyn baa jirta waddankan ka jirta taasi dadka looga digo ama ay ogaadaan ama xaaladdeeda ay ogaadaan runtii dadku siyaalo badan baan annaga ka dowladdan Jubbaland ku tusaale soo qaato yaanu u samaynaa wacyigelin iyo digniinaha way kala daran yihiin mar walba fatahaaduhu waa nooc gaara waa midda sida inta badan degdega ku timaada abaaruhu waa wax runtii dadku in badan oo ka mid ah visible ay arki karaan oo u muuqata dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan khatarta soo foolle waxyaalaha aanu ku ogaano annagu ama ka dowlad ahaan waxaa ka mid ah oo ugu laba shay baanu adeegsanaa kow saadaasha dhaqameedka bulshada Soomaaliyeed inta badan caanka ku ahayd xidigaha iyo dayaxa iyo sida ay u kulmaan sida ay waxa weeye u kala fadhiyaan in badan oo ka mid ah dadku waxay ka akhristaan taa waxay soo bilaabatay bishii 9aad ee sanadkii hadda inaga tegey 10aad in ay roobka dayrtu u yaraani doono jilaalkuna uu dheeraani doono gugax baa soo socda inuu yaraani doono bay runtii dad badan waxa weeye oo xidiga sheegyadu ay tilmaamayeen waxaan sidaas oo kale ku ogaanaa oo laga qaataa waxa weeye digniinaha xogaha dowladdu xaggeeda laga sameeyo waxaa jira wasaaradaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee Soomaaliya ka jira iyo hay'adda Sodma waxaa jira nidaam aan ku wada shaqeyno oo digniinaha iyo xaaladahaas runtii aan uga wada shaqeyno iyo saadaasha aan uga wada shaqeyno wasaaradaha beeraha biyaha wasaaradaha deegaanka iyo cimilada isbeddelka cimilada saas oo kale waa xoga runtii laga helo oo hadda mar horeba runtii aanu haynay in abaartani ay dhacayso waxaa sidaas oo kale jira regional xogo laga helo sida IGAD oo kale hay'adda niman la yiraahdo brand la yiraahdo Swalim oo FAO ay hangarayso oo hay'adaha samafalka runtii dad ay ictimaadaan waxay dhammaan waxa soo dhan muujinayeen laba xilli roobaadkii ugu dambeeyay gugiina inuu yaraa baan horeyba markii hore la sii saadaninay uu ku xigay waxa weeye xagaagii dayrtii inay yarayd saas oo kale wacyigelinta marka taa iyada mar hore anagu soo bilowna anaga Jubbaland ahaan bishii 10aad iyo bishii 9aad baan soo bilownay in xaaladdu dayrtu ay si fiican doorin saadaashin inta helayni oo aanu kulamo samaynay oo wacyigelin samaynay seen dadka u gaarsiinaa waa tirso su'aasha seen dadka u gaarsiinaa ha oo ma helaan oo dadku say u helaan ha dadku runtii waxaan adeegsanaynay hadda fatahaadii hore oo kale waxaan adeegsanaynay number rag gaaban oo dadka u direynay oo aanu kula kulmaynay waxaanu adeegsanaa dadku waxa weeye say xogtaas ay u helaan qaababka TV-yada raadiyaasha iyo FM-yada waxaan adeegsanaa social media Facebook-yada iyo YouTube-yada in badan oo ka mid ah dadka isticmaalay runtii qayb weyn ka ah waxaa la isticmaalayaa wacyigelinta bulshada oo masaajidda inaga wacyigeliyo annagu waxaan sameynaa degmooyinka sida hadda Doolow iyo Luuq weligu ag maro kale in loo sameeyo community awareness wacyigelin ah oo ugu diyaar garoobayaan fatahaadaha degmooyinka fogfog ee abaaro inta badan soo saameeyeen deegaanada Jubbaland sida Ceelwaaq Afmadow Badhaadhe oo kale in marar badan loo sameeyo digniino ama badda inay ka imanayso dabaylo
ama ka imanayaan marka noocyadaasaan adeegsanaa runtii anagoo adeegsana marar qaarkood oo kale hormuud iyo samtel oo kale iyo nambarada ayagana shirkadana adeegsanana way dhacdaa oo nu dhaano dadkii dignina ay khataraha looga digo marka dadkeena runtii siyaalo badan bay u heleen xogta u helaanoo bulshada way isgaarsiisaa wax weeyaan aad baa umahadsantaha cabdiraxmaan dr khaliifaan rabaa inaan soo dhoweeyo khaliif xasan cilmi baaraa tahay abaaraha wax badan baad ka sheegtay wax badan baad ka qortay qodobkan odhanaya digniinaha hordhaca ah maxay yihiin qiyaasta xilliyada la isticmaalo ma kuwii awowyadeenna iyo dhaqanka ahaaba iyo mise waa wax cilmi ku salaysan dr khaliif بسم الله الرحمن الرحيم ورعتوش adiga iyo teamka farsamada waa idin salaamaya sidaas oo kale wasiirka iyo martida kale oo barnaamijka qaybta ka ah aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa barnaamijkan sababtoo ah noloshanada maanta iyo waqtiga aan joogno uu taabanayaa su'aasha haddaan dib ugu noqdo waxaa jirta saadaasha mucaasirka ah iyo saadaasha qadiimka ahayd ama saadaasha hore Soomaalida hore lahaan jirtay iyo saadaasha cilmiyeysan ee hadda waayidan dambe ku soo cusboonaatay dhulka Soomaalida hore waxay lahaan jirtay hab ay wax ku saadaaliso oo luuqadeeda iyo gawigeeda iyo laga helo oo ay wax ku taqaan jirtay wax ku saadaalin jirtay waana noocun cilmigaas falaga ah dad kooban oo gobol kasta Soomaaliya kamid ahaana sameyn jiray arrintaas waxayna wax ku saadaalin jireen meerayaasha xidigaha iyo bisha iyo falgalkooda iyo isla degooda iyo isla joogoodaas waxay ka soo dhax saari jireen hab ay ku jaangooyin karaan cimilada iyo sanada da'i doonto iyo inta ay leegtahay sida ay u egtahay si maana waxaad moodaa dadka noocaas ahaa oo Soomaalida ku dhex jiray waa loo hogaansami jiray waqti xaadirkan marka loo fiiriyo waa loo hogaansami jiray oo dadka cilmigaas yaqaanay markay yiraahdaan sanada soo socoto ma fiicno ama ay meel ka guuraan dad badan oo hogaansami jiray waayidan dambe taas waxaad moodaa shaki diini ah la geliyay ayadoon shaki cilmi ah la gelinin marka waxa la yiraahdaa waa nooc kamid ah falaqeynmaha maaragtay laga fiican yahay diin ahaan dadkii noocaas wax u saadaalin jirayna waa laga reebay bulshada waxaana lagu adkaystay in maaragtay roobka iyo shaanigiisa iyo diitaankiisa iyo sano inay abaar tahay inay calaf lahaato amar ilaahay wax ku xiran ay tahay waxa la kala dhumiyay aqoonyahankii dhaqanka ahaa oo noocaas dadku wax ugu saadaalin jiray hadday wax khaldan jireen ayadoon aan laga sixin wixii wanaagsanaa iyo wixii khaldanaa oo ay lahaayeen waa la dhumiyay dadkaas maadaama ayaga doorkooda meesha uu ka baxay door labaad soo haray oo sida hadda wasiirka sheegayayna aan dadka wada anficin dadkana wada gaarin dhagna aan jalaq loo siinin waa saadaalimaha sayniska ah oo cilmiga ah oo hay'ado waaweyn iyo wasaarado iyo dawlado waaweyn oo adduunka aad loo falanqeeyo soo hadda wasiirka sheegay oo kale bisha tobnaad horaankeeda dabayaaqada September yaa waxaan arkay page rasmiga ah ee midowga Afrika ay leeyihiin bay ku soo baahiyeen saadaasha abaaraha iyo qaleelka bariga Afrika ka dhici doono marka hay'adaha qaramada midoobay ay leedahay iyo dawladahaba waxay leeyihiin iyo macaahidda cilmi baarista iyo saadaasha ka shaqeyso labadaas saddexdaas group oo la isku daray waxay leeyihiin dadka qoraayaasha ah iyo cilmi baarayaasha madax banaanba hab lagu saadaaliyaa hadda la helay habkan marka uu Atoosh waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed hab ay laqeen oo wali ka dagay ma aha oo way inkiraan oo uma hoggaansamaan waana meesha ay aafo badan nooga dhacdo oo markay abaar dhacaysana aan ugu naafowno markii fatahaad ay dhacaysana aan ugu naafowno way marka cilmigaas cilmi wali bulshada ay aqbashay maaha saadaalinta saadaalin wali bulshada ay aqbashay maaha inta raadiyaha iyo maqli karto iyo mataqaana Facebook iyo television waa inta magaalooyinka ku dhaqan dadkaasna dadkii marka hore halista badan ugu jiray maaha abaartii fatahaada dadka reer miyiga ahaa oo rasmiga ahaana caqiidadan sanadka soo socda abaar uu noqonaya way ku adag tahayba marka waxaan ku gabagabeyn lahaa nidaamkan dambe oo mucaasirka ahna lama qaadanin kii hore qadiimka ahaana waa laga soo tagay sidaas waxaan ku noqonay baylaha in fatahaad walba oo dhacdana aan dhaqaale ahaan iyo dunya ahaan u naafowno abaar walba oo dhacdana aan u naafowno circle-kaasna wuxuu dhici karaa sida hadda aan hayo 2010 qoraaladii ka soo bilowday iyo xogihii aan aruurinayay 2010 iyo hadda inta laga soo bilaabo inta u dhaxaysana
shanti sanaba sirkalkaas dabinkaas maraan ku dhacnaa mar ay haataba ama dabinka fatahaadaan ku dhici doonaa ama dabinka abaarahan ku dhici doonaa salaamu calaykum waa mahadsanta doctor khaliif aad u mahadsanta waa ku soo noqon doonaa ha iga fogaanin waxaa isweydiin karaa marka haddiiba fariintan uu qofka helo hagee loo mariya taas iidana waa su'aal meesha ku jirta axmed cabdi cusmaan oo afgooy jooga ku soo dhawaa su'aashaas عطف وما حسنت هاي سيدو كلو سلامة يا وزير عبد الرحمن سيدو كلو سلامة يا دكتور خليف يا دمانا خيارتك لو برنامج كلا سعتو دغيسنيسو سؤاشا دان كسو دواادو حقيقة واحد مودا مركي سيدو دكتور كأو شيء خليف با إن محلو يقانا دادك مقالوين كجوغو أما هيلي كرا استعمال كالسوشيال ميديا أبودو أما فريمه وساردها أي صادران أما هيادها محلو يقانا عالمي أهبا dadkaas waxaa moodaa inta badan digniinaha way helaan ama way dhageystaan ama doodahan oo kale ay dhageystaan laakiin dadka reer miyiga ah ama beeraleyda ah ee inta badan aan telefoonada smartiga haysan internetka la socon idaacadahan dhageysan waxaad moodaa inta badan markii yacni ama abaarta aad u cuslaato ama fatahaad u cuslaato laga yaabaa fariimo ka kooban oo hormuud ah oo xilligaasna laga yaabaa fariimaha dadka loo diraayo inuu culayskii musiibada ay jirto marka waxaan qabaa marka wali gaabis ayaa ka jira walow maxaa loo yaqaanaa waxun ay jiraan haddana sidii la rabay uma shaqeeyaan fariimahaasi waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan telefoonada dadka isticmaalaan ee message-ka kusoo dhici karo ama dhageyska loo saari karo qofka lagu caayo inta badan fariimahaasi si xool ah shirkadaha isgaarsiinta loogama faa'iideysto waxa kale dadka fariinta gaarsiin karana oo magaalo iyo miyiba si siman uga shaqeeyo waa shirkadaha telefoonka weeyaan wixii kale oo magaalada jooga inta badan abaarta iyo fatahaadu si toos ah uma saameyso waxaan isleeyahay midaas arinta kale oo ka muhiimsan waxaan isleeyahay waa in lagu nuuxnuuxsado u baahan haddii xitaa abaaraha la sheego ama fatahaadaha la sheego digniintooda waxaa kasii muhiimsan walow muhiim tahay in loo diyaargaroobo waxaad moodaa arrintaas inay gaabis ka jiraan culaysyo jir awgood dadku marka haddii xitaa fariinta loo sheego laakiin diyaargarow uusan jirin dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba in wixii laga digayay ee dadku ay ku dhacaan khasaarihiina intiisii in la midba uu sii ahaanayo marka culayskaasna waa jiraa axmed aad baa u mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa waxaan jeclahay inaan dadka xasuusiyo lambarka gaaban inay noogu soo diri karaan waxa weeyaan 2 golisna waad ka soo diri kartaa hormuudna waad ka soo diri kartaa fariinta gaaban waana lacag la'aan sidoo kale whatsapp numberka noogu qoran shaashada eed arkaysaan ayaad cod noogu reebi kartaan mawduuca aan ka hadlayno ee aan rabno inaan wax badan ka ogaanana waxa weeyaan in muwaadiniinta soomaalida ay helaan fariimaha digniinaha ah ee ka digaya khataraha abaaraha iyo daadadka doodyan weli bartanka kaga jirnaa wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadanimada ila fadhiya ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiir su'aal kale oo waxaa jirta ku oranaysa abaarta marka la galo ama fatahaaduhu ay dhacan ee marka la galo maxaa muujiya oo astaan ah oo aad dadka la wadaagtaan waa masantahay cabdisaaq runtii intaanan su-aashaadaasi aanan jawaabteeda u gelin waan ku raacsanahay tiimka dr axmed iyo injineer axmed iyo dr khaliif sida ay sheegeen saadaasha iyo digniinaha ama traditionalka lagu helayo ee dadkii xidig sheegyada ama nidaamkaas isticmaali jiray qadiimka ahayd ee soomaalidu ay ku saadaalin jirtay ama midan casriga ah soomaalidu inay runtii aqbasho way adag tahay qaybo badanna waxaa laga yaabaa haddayba aqbali lahayn xataa inay ahayd inaysan u gaadhin baa dhici karta tusaalayaashaan anigu ugu soo joogay waxaa ka mid ah runtii 2023 ilniinadii iyo fatahaadii xooga badnayd markii ay digniinaheedu soo baxeen oon bilownay dadka inaanu nambaro u diro oo kala hadallo fariin ugu diro gaadhsiino oon u sheegno wacyigelin loo sameeyo bulshada qaybo badan oo ka mid ah bulshadu runtii weliba dadka webiga ag degan oo kale way aad bay runtii waxa weeye dadku arrintaasi bay uga hor imanay u lahaayeen ma alla xaggiisa ka timaadeen mase ay ku dhici kartaa mininka ogaad laakiin 2 bilood 3 bilood kadib dadkii sidaas runtii lahaaba waxay arkeen wixii oo dhab ah marka runtii waa culis jira oo in badan oo ka mid ah bulshada laga yaabo inaysan waxa weeye sideedu la falgelin oo una baahan in lagu celceliyo si taas aan uga hortagnaan anagu ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad Jubbaland ahaan qaadanay inaanu runtii maadaama webigu inta badan khatar badan nagu hayo fatahaadiisu inaan communityga webiga agaagisa degan mar walba inaan wacyigelin u sameyno tiimam isugu xidhno oo aan waxa weeye dhahno webiga marka dayrtu maalan waxa weeye hadda may markay dhexdeeda la marayo kale
oo inta badan xilliyada fatahaadu timaado oo kale oo highlandka biyo Ethiopia ka soo rogmadaan in la dhaho dadka waxa weeye loo diyaar garoobo oo waxa weeye la iska ilaaliyo marka runtii waa barnaamij u baahan dadaal badan iyo ka falgelid iyo isku tashi in hawsha iyada loo waxa weeye laga dadka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo xagga diiniga iyo xagga kale mar walba ay isdiidaynin in waxa weeye la iswaafajiyo su'aashaadii haddii aan u soo laabto abaarta marka la galo fatahaadaha maxaa muujiyo astaan ah oo aad dadka la wadaagtaan tusaalahaan hadda abaartii dhexda looga jiraa waxaa runtii abaartan hadda lagu jiro kale waa wax runtii la arki karo oo muuqda oo dadkii in xoolihii biyo yaraan imanayso oo dadkii ceelasha iyo xool meelihii biyaha isugu imanayaan inay dadkii waxa weeye biyihii qabarayskoodu kor u kacahayo meelo badan in biyihii waxa weeye ay dhaamamkiiba annagu hadda waxaan soo bilownay bishii tobnaad markaa la dayrtiinaysan waxa weeye runtii saadaasheeda aysan yar tahay inuu dei doonto deegaamada Jubbaland qayb badan oo ka mid ah gobolka Gedo kale iska diinba inaanu dadkii ku wacyigelin oo dhan waxa weeye abaar baa soo socotay biyaha meelaha waraha oo kale dadku isticmaalaan hala kaydsado ceelasha in dib loogu sameeyo dayactir loogu sameeyo loo diyaar garoobo marka waxyaalaha la arkay waxay ka mid tahay dadku u muuqda abaartu inay waxa weeye jirto oo xaalad ay muuqato biyihii iyo yaraanaya dadkii oo isku soo daaqii oo yaraado oo dadkii badan ka mid ah deegaamada waxay leeyihiin xoolihii daaq bay leeyihiin isu gurgur baa imanaya oo degmooyin kooban bay isugu imanayaan oo roobku in yaray ka da'een degmooyinna kama badiinba marka markii la ogaado inaan ceel waaq iyo afmadow iyo beled xaawo iyo baar dheer inaysan roobe ka diinba that means inay xaalad abaar oo khatar imanayso mar walba noo sii muuqatay bay ahayd fatahaadda saas oo kale webigu markii luuq uu kasoo dool uu kasoo galo isku soo daro luuq markuu soo gaaro la ogaanaya inuu fatahaaddu meesha marayso iyo numberka uu webigu meesha waxa weeye marayo taana waa xaalad tusinaysa fatahaad inay khatar jirto dadka markii in la yiraahdo war diyaar garooba ka durka waxa weeye meelaha korkore meelaha asla seed garaynay baa isla calaamadinay baa jirtay annagu waxa weeye degmooyinka iyo wasaaradda iyo waxa weeye hay'adaha kala dawladdu iyo hay'adaha amnigu meelaha baar dheer meelaha looga badbaadi karo luuq looga badbaadi karo kismaayo meelaha webigu waxa fatahaadu ku keeni karo iyo meelaha kale marka noocyadaas waxa weeye inta badan lagu ogaada waa gartay waxaan rabaa afgooye inaan aado Ahmed Cabdi Cusmaan isla su'aashaasaan rabaa inaan si kale u dhigo abaarta marka la galo sida haddaba jirta maxaa jira wax muujiyo astaan ah oo dadka lala wadaago gaar ahaan hadda beeralayda aad ku dhex jirto وما طبعا عطوش هرت حقيقة وضح إنه محل يقانا ما هذه أبارتي أي بلابطو إلى سبحانه قادر كأمدي ساكسو جارها نجا قبوتشيو واحد محل يقانا الشيء سام بحنو كلي وحب بحن تسيد لغة بش يصلها يسيد محل يقانا حولها لو محل يقانا لو بحلها تكون الاسكو جرمل لهم بمهم ولما مالهم بيرحان أو أنت بدن أمانهين أما دور نمو سيسحيس أجارين تذكر وحد مدة آد بيره ويهين أي ضيعيهين wax gurmadana loo fidi karin cid dadku aysan ka warheynin culayskoodana ay tahay wax qarsadeen walo inta badan dadku iska soo barakacaan oo magaalooyinka soo galaan kadibna ay barakacyaal ku noqdaan qaarkoodna ay adagta inay dib ugu laabtaan beerihii iyo noloshii miyiga mar haddii magaalooyinka ay ku heleen baxnaano yar iyo nolol yar oo maxaa loo yaqaan markaas u muuqato badbaado marka arrintaas marka abaarta haddii mar dhacdo wax sheegis ay wax uma baahno kaliya waa qof kastii cagaha ku baxso qof kastii noloshaada xoolaha isaga badbaadi karto ku badbaadi dadku inta badan xoolaha ku mitidaan marka xoolaha gacantooda ka baxaana noloshoodii la soo cararaan oo magaalo iyo meesha markaas ciirsile la soo aadaan waxgaag aad baa u mahadsantihiin waxaan idin xasuusinayaa lambarka gaaban inaad fariin noogu reebi kartaan golis haddaad haysato iyo haddaad hormood ba haysato sidoo kale lambarka whatsappka ka muuqda shaashadda ayaad cod ku reebi kartaa waxaan jeclahay inaan dadka fursad siiyaan rabaa dhowr qof toos ugu jirta khadka oo aan jeclahay inaan u baaqo oo mikrofoonka qaataan Ahmed Cusmaan soo dhawow Ahmed Cusmaan haddii aad su'aal qabto oo martida su'aal weydiinaysa iyo haddaad fikir ku daraysabo السلام عليكم مالي مغلار si fiican lagu maqlaa ku soco بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رمضان وناكسن dhammaan martida barnaamijka wasiirka iyo martida kale ee barnaamijka ku jirta aniga su'aal ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan waxyar aragti ka dhiibto habka fariimaha helitaanka dadku inay fariimaha helaan in kale sida ognahay fariimaha waxaa lagu baahiyaa laba qaab ugu caansan fariin qoraal
iyo maxay tahay in idaacadaha laga sii daayo waxaa soo saddexeeya in baraha bulshada lagu faafiyo dadka magaalooyinka ku nool ama urban areaska inta badan fariimaha way helaan laakiin dadka ku nool meelaha baadiyaha rural areaska ma helaan fariimaha ama kuwa yara hela sababa jira ogo tusaale ahaan baadiyaha waxaa aad u ciriiri u ah isgaarsiinta ciriiri waay meelaha baadiyaha sidoo kale dadku waxaa laga yaabaa in telefoonada ka dansan yihiin oo maaragtay inaysan dadka jaajar haysana macquul ah oo korontada ay ciriiri ku tahay waxyaabaha kaloo keenaya dadka baadiyaha jooga caqabadaha ku ah inay fariimaha helaan waxaa ka mid ah in literacyga uu aad ciriiri u yahay oo dadku aysan aad qoraal aysan akhrin karin maadaama dadku baadiye ay joogaan oo aysan wax fahamsanayn akhriskii iyo maaragtay sidoo kaleeto waxaa dhib ku ah in mararka qaarkood fariimaha ay ku qoran yihiin aa dhici karta waxyaaba scientific ah oo fariimaha ay scientific yihiin dadka qaarkood dialectiga ay isticmaalaan ama dadka maxay tahay inaysan ugu dhacin sida gobolada Bay iyo Bakool oo kale inkastoo dowladda arrinka improvement ay ku sameysay baadiyaha caqabadaha kale oo ka jira waxaa ka mid ah inaysan wixii aysan ka dhadhacsanin sida hadda wasiirku uu sheegay oo kale oo aysan aaminsanayn in maaragtay waxaan wax sax ay yihiin sidoo kale mararka qaar waxaa dhici karta genderka xaggiisa marka laga hadlayo dumarka iyo ragga inaysan fariimaha isku sii u helaynin arrinkaas ayada lafteeda caqabad baadiyaha ka jirta waye marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in fariimaha dadku ay helayaan oo kaleeto uu inconsistency ka jiro sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa wasaaradda ama sodmo oo kale inay fariimo dirto hay-adahan qaramada midoobay kale inay fariimo diraan sida WFP iyo FAO oo kale ayagana wixii xoogaa marka dadka in ay fariimihii aysan mid ahayn suuragal ah marka qaar inkastoo arrintaas improvement marka waayihii dambe ay ka jirtay halkaas waxaa loo baahan yahay coordination gapska in laga hagaajiyo dadkana sidoo kaleeto caqabadaha ay wajahaan waxaa kamid baadiyaha misinformation badanaa jira oo ka jira dhinaca baadiyaha in wixii dadka qaar ay tashwiish ku furayaan dadkii taasoo dadkii aysan mar too late ay tahay oo wixii daaheen ay maaragtay action qaadayaan marka intaasaan kusoo koobi lahaa aniga waqtigan dhaqaaleynaya aad u mahadsantiin Atoosh iyo bahda kale ee barnaamijka daadihinaysa waad mahadsantahay hayga fogaanin runtii wax badan baad kusoo kordhisay barnaamijka Dr. Khalifa aan rabaa inaan su'aal weydiiyo Dr. Khalifa dabcan hadda bartankaa looga jira abaarihii maxaad isleedahay waa la isticmaali karaa aalad ahaan dadkase qaabkii ku heli karaan Atoosh waa mahadsan tahay mar kale adii martida wasiirka iyo asxaabta kale oo meesha ku jirto waxaan isleeyahay habka ugu dhow waa shirkadaha isgaarsiinta wicitaankooda oo la dhex maro anoo waqtiga ilaalinaysa saan uga jawaabi lahaa meesha ugu dhow waa taas maxaa yeelay waxaan kale oo raadiyaha leh oo social mediaha leh maba haystaanba dadka maanta ugu nugul oo dhibta ugu badan abaarta ay ku dhacayso haddayna heli lahaayeenna dantaba uma saamaxaysaba nin abaaraysan shaashad telefoon inuusan furin bay u badan tahay laakiin qofkii uu dhihi lahaa warbooyad ii shub iyo kii uu dhihi lahaa halihii maxaa fariistay maxaa socda haddii wicitaanka fariinta ay ku dhex jirto waxaan isleeyahay meesha ugu dhow uguna saameynta badan wicitaanka shirkadaha waaweyn ee waddanka laga isticmaalay inay tahay Catoosho Khalifa misleeda haddii dadkan loo tago tusaale ahaan aw dhiigle baadiyaheeda qofka jooga haddii loo tago ayagoo xaafadaha loogu tago fariimaha la gaarsiiyo si waadix ah oo qofku war istaagi karo waxbay ka tari kartaa waa runtaa waxbay tari kartaa oo weliba taas wacyigelin dheeraad iyo waxay wadan kartaa cilmiyo iyo farsamooyin iyo calaamado laakiin markii la rabo dad in la abaabulo waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay waqti kuwaan aad abaabulaysaa waqti kaaga baahan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa logistic inay kaaga baahdaan iyo hab lagu abaabulo waxaa laga yaabaa qalab ay isticmaalaan iyo warqado ay calaamado ku qoran yihiin iyo erayo iyo halkudhig inay kaaga baahdaan marka waxaan isleeyahay wacyigelinta telefoonka waa midda ugu gaaban oo haddii caawa 6 saac la sii daayo codadkaas beri subax wax ku dhow 10 milyan oo qof ay maqli karaan marka kuwa kale farsamada galaysaana waqtiga halista oo lagu jiro sii dibdhigi kara macnaha ama halistana sii badin karo saasaan oran lahaa wahgaag aad baa u mahadsantahay waxaan xasuusinayaa dadka hadda nagu soo biiray inay toos u dhegaysanayaan doodeena baraarug oo abaarahan uga hadlayno dadku ma helaan fariimaha digniinaha abaaraha iyo daadadka iyo khataraha soo socda
aragtidaada soo dhiiban kartaa golis iyo hormuudba 280 weeyaan lambarka gaaban waa lacag la'aan whatsapp numberka shaashada ku qoran ee 25 eber 66 qoraalna waad ku reebi kartaa whatsappka cod ahaanna waad noogu reebi kartaa waxaan jeclahay axmed cabdi cusmaan oo afgooy jooga axmed oo su'aal kale waxay ku oranaysaa aaladaha dadka ay isticmaalayaan tusaalehaan haddaad markaad beeriha joogto reer miyiga marka laga soo tago beeraleyda kee u fiican ma telefoon in fariin loogu reebaa ma whatsapp in loo reebaa ma in inta loo yimaado codbaahiye mikrofoono la isticmaalaa ma raadiyaasha inay dhegaystaanba aaladee la isticmaali karaa عطش وما حسنتهاي وسؤال مهم ويان وحا أقول cost effective ما نقال هنا صورة قلة تكون أي وذهلي كران وإن محله يقانا تليفون كان عادي سيستم كهرمود للأحمر لو قابنا اللي اسكو قدروا ومرة إن مسج لو قرأ سيدا كوا مسج كأفريق كرا أو حقيق كران أي أركان إيو إن مركب محله يقانا سيدا هذا هرمود أي سميسو أما شركتها سجارسين تجودهان أي سميان إن لو وقف مركب إسواع عيان أو قف كتليفون كدك تكو هايانا فرصة سيركا ولوجا فائدته سكنيسكا وقفك لوجو شيء وبيح مركز إمرجنسية مركز وقنا فضول قستهان اللي أودي كرا أنا سعدت كان يكون لجاري كرتفرين تلاحت أدبا وما سنتهاي وحن جعلها إن سجل أباقه أو دقيستا توصل خدك وجرتا إن سجل دمرك مثلا هاي إن إسلا فريمهن إيجا أويهلي كران صوته حتى هو ينفرد أنه هذا أبارتي أي سامي سلنا أركيو waa mahadsantahay Catooshow wasiirka iyo marti sharafta meesha saaran baa salaamaya iyo akhyaarta dhinacaas iyo nagala socota Facebooka haweenka iyo dabcan guud ahaan dadka danyarta ah oo laga yaabo inay ku sugan yihiin saalada u soo qaadanoo kala beeraleyda iyo dadkaas abaaru ay saameeyeen dadka meelahaas joogo kale waxa dhigi karnaa inta badan fariimaha waa loo gudbiyaa laakiin sida caadiga waxa macquul ah qof xoolihii ay ka fadhiisanayaan abaar darteeda hawl ku jiro beerihiisii ka soo barakacay waxaa laga yaabaa inuu sidii la rabay u helin fariinta markaas ayada ah marka waxaan dhihi karaa waxay u baahan tahay in dadaal dheeri lagu bixiyo juhdiyo lagu bixiyo waxa jirto kale tusaale in dadka aysan isku lahjad ku hadlin sida tusaaladkeena mashruuciga oo kale beesheena jarweynaha oo kale dadka af Soomaali ahaan in oo luqad fasiix ah lagu gudbiyo waa laga yaabaa fariinta sida hormada dil dhex maro hadda sida uu sheegay walaalkii horeeyay dadka marka fariintaas loo gudbiyo waxa laga yaabaa inaysan siinin ba priority aysan siinin ama aysan inta badan focus ka saarin ay keeni karto lahjada lagu hadlayo marka waxaan dhihi lahaa in la xoojiyo kala talahaan ku darsan lahaa in la xoojiyo waxyaabaha lagu hadlayo markaas barta FM-yada kale hadda meelo badan oo gaarayaan baa jirto meelahaas kale oo la dhex mari karo qof walba wixii uu fahmayo sida uu fahmayo hadalka in qof walba halka loo sii marin karo oo aan kaliya ugu daynin aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay wasiirka gargaarka Jubbaland aan nala fadhiyo maantana ka soo noqday dhulkan abaaraha ay ku habsadeen wasiir Cabdiraxmaan dadku sidii ku ogaadaan inay abaar jirto ama fatahaad inuu jiro bismillaahir rahmaanir rahiim ma santahay Catoos runtii dadku hadda inay abaar jirto ogaansho u baahan oo waa banaanka taalaaba nin walba oo qof walba maanta Soomaaliya jooga meel uu ka joogaba runtii gurigiisa ugu tagtay oo kii beeraleyda bay saameysay oo kii xoolalayda bay saameysay oo magaalada bay saameysay oo dadku maanta way arkaan oo midaas waxa weeye u baahan hadda in looga siiyo waxa weeye ma aha u baahan ma aha runtii annagu booqashada haddaan dool maanta gobolka Gedo aan ku joognay maalmahan oo degmooyinka ku mareynay gobolka Gedo iyo gobolada degmooyinka gobolka Jubbada Hoose maalmihii weeyga ugu dambeeyay waxay ahayd runtii diyaar garowga iyo ka jawaabidda abaarta dadka iyaga haysata si wax uga qaban lahayd hadda maanta ma taagna digniinta loo gaarsiiyay digniintu dadku hadda way baxaysaa oo way dhexda kaga jiraanba laakiin waxaan dhihi lahaa inta aan taas aanan wax ka dhihin runtii dadkeenu inay helaan digniinta oo ay helaan waxay u baahan tahay tallaabooyin badan oo inta la sheegay dadkan aan ku waafaqsanahay meelaha ugu muhiimsan la adeegsan karo shirkadaha isgaarsiinta iyo fariimahooda mobilada ugu soo dhacayo iyo tu loogu diray wax muhiim ah runtii horena anagu aanu tijaabinay shirkadda hormuudna runtii aanu mahad celinay hore aanu wada shaqaynay haddii fatahaada noqoto iyo haddii abaarta noqoto waxaa u baahan runtii iyadana saas oo kale in la xoojiyo dowrka culimada iyo dadka liidka ah oo in la saxo fahamka ah khataraha ka digidoodu
in laga diga khatar soo socotaay inaysan wax diinta xaggeeda iyo qeybka la xidhiidha oo khatar inaysan ahayn oo yani dhibaato inaysan ahayn dadka in laga soco qofka inaad tidhaahdaba walaal waxaa muuqata inay khatar soo socoto bishan iyo bisha dambe waxaa la saadaalinayaa inuu webigu fatahi doono meeshan ka guur khatar bay ku keenaysaa ma ilaahay xaggii baa nooga tiid bale dad baa qaanay dhahaan baa laga yaabaa marka in culummadu fahamka in asxaayi waa bointi runtii muhiima oo loo baahan yahay oo dadaal lagu bixiyo annaguna hadda aan bilownay ka jubbaland ahaan qodobka isaga inaynu adeegsano oo hadda guddiyada abaaraha ee hadda heer degma ka samaynayna waxaa ku jira mar walba culummo oo dadka wacdinhaya oo inay u diyaargaroobaan khatarahan ama fatahaad ha noqoto ama abaar ha noqoto oo ay qaataan digniinaha loo sheegaya ka dowlad ahaan runtii in la mideeyo dadaalada ka digitaanka khataraha ana waa bointi muhiima runtii waxa weeye haddana socda horeyna aanu wadnay waxaa hadda dadaala socda oo isteedyada ka socda dowladda federaalku waxay ahayd sodma maamushaa heer la yidhaahdo siyo ee la yidhaahdo oo waxa weeye national oo khataraha iyo inay ka digto oo weather forecast samaysa in la daadajiyo oo state kasta laga sameeyo qorshaheedaan wada inaga jubbaland qorshaheeda waan wadnaa hadda dhismihii mar dhow waxa weye uu bilaabanayaa steedin kalena uu ka socda taa waxaa la rabaa waxa weeye qorshaheedu yahay in la mideeyo digniinaha waddanka ka soo baxaya dhammaan waxa weeye heer federal heer state ba hal digniina oo saxa oo xogtii la helaa in dadka loo daadajiyo oo bointi u baahan runtii gaabna uu ka jiro in la buuxiyana u baahan marka dadku si u ogaadaan runtii waxa weeye arrintaa iyada waxay baahantay dadaal badan oo lagu midaysan yahay oo laga wada qayb qaato oo masaajida laga wacyigeliyo oo tiifiyada laga hadlo oo dadka loo tago waxaa kaloo ugu muhiimsan dadka in loo tago annagu hadda waxaanu la kulannay meelo fara badan oo dadku runtii tuulo la yidhaahdo diif dad aan kula kulannay odayaala oo dad waaweyna waxay qiyaasayeen bixinayeen runtii saalaasha abaartii daba dheer calaamadeeda hadda inay muuqdaan sida dadku aysan calafkii aysan xoolii u haysanin biyihii ay u yaraanayaan dadku ay isugu soo gurguurayaan oo dadki meesha waxaanu ku aragnay hadda doobley iyo afmadow iyo waxaa imanaya dad ka soo qaxay southwest ka imanaya oo diinsoor ka yimid oo iska socda oo magaalooyinkaas waxa weeye soo hiigsanaya qaxootigiina laga xiday oo kenya aan geli karin markii la yala xaggan kenya loo gudbo marka runtii waxa weeye dadku waa wax hadda u muuqato nin walba kuu sheegayo markaan la kulanno on dhaaro bal warrama ay leeyihiin niba khatar baa noo muuqata ay leeyihiin qof walba dadkii ninkii baadiyaha ariga watay ama lo-da watay markaad weydiiso xaaladaada ka warran wallahi xaaladdu ma qurux badnay buu leeyahay maanta marka cabsi badan baa jirta cabsi badan baa marka runtii u baahan in waxa weeye lagu diro qodobka runtii kale ee walaalkaan u marinaya inuu ahaa injineer khaliifna uu ka hadlay ah khatartii way muuqataa waana aragnay see in laga diyaar garoobaa muhim waa roolka runtii dowladdu inay qaadato heer federaal heer state ah oo bulshada lagu hogaamiyo si loogu waxa weeye khataraha looga hortago hadda abaartan oo kale annagu ka dowlad ahaan jubbaland waxaan mar hore soo bilownay runtii in markii gugii hore uu yaraaday deyrtiina ay dhex marayso in wasaaraduhu ay bilaabaan isku yani barnaamij resiliency oo isku tashi ceelal badan in la qodo dhaaman badan in la qodo in la sameeyo webiga meelo badan in lagu kala biyahaysa laga faa'iidaysan karo beeraha in loo sameeyo dadku inay wax beeran karaan xoolaha in calaf loo sameeyaa socdo qorshe oo calaf loo arrinta calafka wasiir halka igu hay axmed cabdi cusmaan calaf baa ka shaqaysaa beeraleyda dhinac ka tahay afgooda joogtaa isla su-aashaasa waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo dadka sidii ku ogaadeen inay abaar jirto ama fatahaad jirto fatahaad baan tusaale usoo qaadanay iyo afgooy iyo beeraleyda عطف waa mahadsan tahay dadka intooda badan ee dhaligaradka ah ee beeraha ka shaqeeya ama reer miyiga ahba intooda badan oo fariimaha hadaan dhinac ka sheekeynay ayay helaan iyo dadka qaarna waa dadka Dr. Khaliif uu ka sheegay oo cilmiga xidigiska iyo xidigaha iyo waxyaalahaas si traditional wax loogu fiiri jiray marka waxa isla qataraha ama inta badan digniinaha waa la helaa walow dadka boqolkiiba boqol aysan wada gaarin loona baahayo in intaas looga sii dhawaado laakiin waxa muhiimka ah rabaa inaan ku nuuxsado oo ka faa'iideysanayo wasiirka doodan ugu jira iyo khibrada kaleba waxa asal ah waxa hadda la dareemayaa inay run tahay isbedelka cimilada abaaruhuna ay soo laabteen fatahaaduna ay soo laabteen moodana inay isku keenayaan waxaan laga rabaa marka sida marka bulshadeena ay tahay wax ku dhow boqolkiiba 60-70 dad reer miyi ah xoolaha nool ku tiirsan noloshooda labada shayna u nugul yihiin marna fatahaadu aad ugu nugul yihiin dhibaato weyn u gaarsiisa abaartuna sidoo kale waxaad moodaa inay fatahaada ka sii khatar badan tahayba marka waxaa muhiim ah in maxaa loo yaqaan isbedelkaas cimilada maadaama uu jiro inaan bedelno weygii aan u nooleen ama hab nololeedkeenii hore oo ku tiirsanaa daaqii xorka ahaa iyo waxyaalihii inta badan aan juhdiga iyo jihaadka badan la gelinaynin tusaale ahaan in calafka la diyaariyo tusaale ahaan bishii hore waxaan joogay Kismaayo aan tagay arrimo tababar wasaaradda xanaanada xoolaha ee Kismaayo ama Jubbaland
ayaan la shaqaynayay meelihii aan tababarka u tegay waxaa ka mid ahaa oo dadka ku tababarayay meel rayontoy ama xaggaasi goobweyn waxaa fili lahayd in webiga Jubba uu buuxay oo biyuhu ay badda ku shumaayeen meel 30 kilomitir u jirta eridaasna ay ku dhimanayaan xoolaha oo abaarta ay saameysay dadka waxaa moodaa marka walow dadaal uu ka jiro yontoy beero badan oo calafka lagu beeray ay jiraan oo farsamo dhawaan gal ah haddana waxaan moodaa sidii la rabay uma shaqaynin oo dadka reer miyiga ahaa lama barin ama kuma baraarugsano in xoolaha gacanta in laga quudo inay muhiim tahay in calafka la diyaarsado inay muhiim tahay in arrimahaas marka waxaan wasiirkan uu ka faa'iideysanayo arrintaas waxaan rabaa juhdiga lagu bixinayo in abaarta laga daba tago iyo gurmadka iyo wacyigelinta in si joogto ah loo shaqeeyo dadkana la baro inay isbedel jiro isbedelkaasna lagu qasban yahay si loo noolaado loo sarfaaf gareeyo in la xil hore laga diyaar garoobo noloshii reer miyiga ahayd oo maxaa loo yaqaanaa aan ku dhisnayn maxaa loo yaqaanaa iska socodkana oo meesha ka baxo qofku diyaarsado marba tirada xoolaha uu leeyahay calafka uu sii lahaa xilliga abaarta waxaa jiro xilliga roobka jiro raqiis ah badarka oo kale qofku inta badan inuu gadana laga yaabaa balka uu keysan calaf uu tacban laakiin abaarta markii la gaaro ku baraarugo arrimaha calafka waan ka warrami doonaa sagal baa su'aal qabta oo ah dhegeyste toos khadka ugu jirta sagal soo dhawaaw su'aashaada waagaag sagal waa kuu soo noqon doonaa waxaan jeclahay su'aal kale inaan wasiirka hordhigo dad la takooraa jira gaar ahaan dadka inta badan ay Soomaalida aaminsantahay in laga tiro badan yahay oo la hebsooco ama si un loo takooro bulshada laga takooro reer guraaga gaar ahaan kuwa tuulooyinka ku nool ee aan helin wararka digniinaha xaggee ka heli karaan cabdiraxmaan runtii khatarahan abaarta iyo fatahaadda waa mid wada saameynaysa dadka waxaan u malinayaa dad la takooro oo si gaar ah khatarta ugu dhacda ma jiro laakiin waxaan u fahmayaa macnaheedu waxay tahay dadka meelaha fogfog degan ama dadka tabarta daran ama dadka aan waxa weeye digniinuhu inay ama idaacad ama raadiyo haysanin ama moobile haysaninba oo dadka nugul ah dadka runtii waxay ka ogaani karaan oo ugu muhiimsan in lala falgalo oo si cadaalad oo siman dadka waxa weeye loo gaarsiiyo adeegga loo wada gaarsiiyo dadka baadiyaha degan ee tuulooyinka degan baa khataraha ugu nugul runtii waxa weeye hadda abaarta oo kale fatahaadana dadka ugu nugul waa dadka annaga hadda Jubbaland oo kale ama webiga hadda Shabeelle ama Jubbo kale webiyaashu dadka agdegan webiyaasha oo kale waa dadka ugu nugul waana dadka runtii Soomaalida markii la yiraahdo ugu nugul weeyaan oo dad ama beera ku xaweeyay ama guriyo jilicsan oo aan u adkaysin badan u sameyn karin fatahaadda aan lahayn dadka marka in la gaarsiiyo oo fariimuhu ay gaadhaan ama loo sameeyo wacyigelin ay ku ogaani karaan annagu runtii hadda webiga jinkiisa degmada Kismaayo ila degmada Jamaame luuq ilaa Doorow ilaa degmooyin dadkaas oo kale waxaan u sameynay in la isugu xidho community ahaan teamka la isugu xidho loo sameeyo qof chairman loo sameeyo telefono yar la siiyo oo fariimuhu ugu soo dhici karto isgaarsiin wacyigelin duulada intii tuulada gaba la yiraahdo xilligaas iyada ah runtii dadku way la qabatimeen oo maalin hadda marna xasab booqday la yiraahdo Barson Guni nin odaya i weydiiyo runtii ugu yiri fatahaadii kadib ay ahayd taadii 2023 bilowgeedii markii gugii dambe bay ahayd bi ugu yiri wasiir beertana beertaan rabaa ka waran salaashu ma beeran kara mise tii hore way iga khasaartay hadda beero haddana khatar igu timaado oo wixii bay iga geliyo dadaal geliyo seeroga badbaadi marka waxaan isleeyahay dadku runtii khatarana soo laalaamanaya wacyiga in badan bay wax badan ka taraysaa laakiin inay la qabsadaan oo say tahay uga hortagaan ama ay waxayaan sida walaalkeed uu sheegayay oo kale oo dadkeenu ay ka guuraan nooca traditionka naalka ahayd way ku adag dadku inay xoolaha inay iska wareegaan oo socdaan xooluhu oo ay daaq raadiyaan daaqiina ma aan lahayninba roobada ay sidiinba waa khatar dadkeena runtii ay waxa weeye wajahayaan marka dadku inay calaf beertaan oo ay xoolaha xareeyaan oo xooluhuna nastaan calafna loo sameeyo wasaaradda xanaanada xooluhu runtii hadda way wadaa Kismaayo way ka bilowday degmooyinka oo dhan way ka wadaa in dadka waxa weeye calaf ay loo abuuro xoolihii ay calafkaas waxa way ku tiirsanaadaan annaga ka emergency ahaan dadku waxaan leeyahay emergency ka baxaano dadku ay beeraha tabcadaan xoolaha tabcadaan oo ay u diyaar garoobaan khataraha asaas kale uga bixi karaan aad waa maasanta sagal faraha soo noqotay sagal su'aasha aad qabto laba su'aalood baa qabaa su'aasha koowaad waxaan weydiinayaa Qaliif Xasan Xareed oo cilmi baaraha ah su'aasha waxay leedahay sidee loo isku waafajin karaa xogta cimilada ee ay bixiyaan hay'adahaas waaga
sagal waan ku soo noqon doonaa khaliif waa maqlahaysaa sidee la isu waafajin karaa digniinaha ay bixiyaan hay-adaha samafalka iyo kuwa dhaqanka su-aasha waa caynka khaliif haye السلام يا مركل أخيارت وحن أملينا هنا تهي سؤاش يعني هيدهن إيو وحن ويرني ساداش معاصر كي مد قديمي قد سيلس كوا فجن كرامية ها واسدا وحن إسلايا هي وحي أباهيهين وحيابو وحا جرا موقتها علمي oo dadku aysan hal mar si isleeg u qaadan karin marka waxaan isleeyahay waxa jamcin karo oo isku duwi karo oo hab dadku ay u fahmi karaan ka dhigi karo wasaaradda federaalka ee daaqa iyo mataqaana iyo waliba hadda wasaaradda environment la sameeyay iyo wasaaradaha dhigooda ee maamul goboleedyada ka jira yaa luuqadaha ama eri cilmiyeedka la qoray ama astaamaha wax lagu yaqaano oo afka cilmiga ku qoran oo hay'adaha rasmiga ay bixiyaan ama waxyaabaha oo wax lagu cabiro oo wax sheegayo iyo sida loo isticmaalo iyo xogaha sida loogu kalsoonaan karo waa wax u baahan aan isleeyahay wacyigelin bulsho oo heerkeedu aad u sarreeyo waliba oo mawjado kala duwan iyo meelo kala duwanna laga sii daayo dooda laga sameeyo dadka dhexdooda laga sameynayo waxaan isleeyahay meelaha ugu dhow oo xogtaas lagu turjumi karo oo laga dhigi karo mid uu qof kasta fahmi karo qofka aqoon-yahanka oo cilmi baaraha ah ilaa qofka xoolaha la joogo luuqad ay fahmi karaan waxa ka dhigi karo oo isku duwi karo waa dowladda federaalka hay-adaha ama wasaaradaha waxaan u qaabilsan iyo kuwa federaalka oo inta aragti siyaasadeed oo midaysan ka yeesho xogtaana loo daadajiyo heer ay bulshada fahmi karto laakiin xaqiiq waxa ah inaysan bulshadu fahmi karin saadaalin qaramada midoobay ka timid kadibna wasaaradaha naga ay sidooda u soo qaateen oo eri cilmiyeed ku qoran oo hal ku dhigyo cilmiyeed ku qoran oo waxa la dhahaa istilaaxaadka ama terminology-ga cilmiga ah ku qoran bulshada inaysan wax badan oo saameyn ku yeelan doonin baan boqolkiiba boqol aaminsanahay barnaamijyadaas waliba waa inay qayb ka noqdaan dadka cilmiga u saaxiibka waxaan fikirka ka haysta iyo culummada intaba saasaan dhihi lahaa Ustaz Catoosh aad baad u mahadsantahay dhegeysta kalan jeclahay inaan u baaqo anigoo idin xasuusinaya in doodeennii aan bartanka kaga jirno laakiin su-aal kalaan rabaa inaan wasiirka aan ku soo dhoweeyo qaabkee loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka biyola'aanta ay haysato biyola'aanta arrinta biyola'aantan jeclahay waxaanan rabaa maadaama hadda aad geda ka timid muddona ku maqnayd jubbada hoose iyo gedabo inaad arrintan si fiican oo faaqidsan noogu sharaxdo qaabka loo gaarsiin karo wacyigelinta dadka biyola'aanta ay haysato wasiir haye waad mahadsantahay Catoosh runtii waxaa problem weyn runtii oo intaan deegaanada maraynay waxyaalaha la kulmayna waxaa ka mid ah dad fara badan oo tuulooyin degan oo deegaano la og yahay oo la yaqaano oo la garanhayo oo biyo laga heli karin laga qodi karin biyo mareen aan lahayn oo markii xataa roobku daan biyo mareen lahayn bay dadku degayaan marka dadku biyo la'aanta jirtay hadda dadku way wada saameyn guud baa wada jirtaba oo hadda anaga Jubbaland waxaa ka wada jirtaa runtii magaalooyinka inta ugu badan beediyaha iyo tuulooyinka saameyntu way ka jirtaa sida lagu gaarsiin karo waxa weeye dadka in loo calaamadeeyo loo sheego meelaha biyaha laga heli karo meelahaana dadku ay degaan oo deegaanadan iska degaa ee goobaha biyaha laga helaynin ee fog adag tahay in geological survey laga sameeyo laga helay dadku inay ka guuraan oo ka fogaadaan xoolahoodana si biyo weeri karin khatarra ay ku sugan yihiin sida aan ognahay Jubbaland saddexda gobolba waxay markii Soomaaliya la yiraahdo dowladda Soomaaliya 1974 daba dheer markay dhacday kadib waxay Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay samaysay barnaamij la yiraahdo rural development campaign oo la yiraahdo barnaamijka horumarinta reer miyiga wacyigelin oo guud oo la sameeyay xoogga wuxuu saarayay barnaamijkaasi oo projectyo waaweyn oo baad dhaamkii panoramic la qoday oo runtii ka horreeyay xilliga isaga la sameeyay wax la yiraahdo water for all in la sameeyo biyo qof walba inuu heli karo daraasada runtii waxay muujinaysay deegaanadan Jubbaland gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose in ay ku badan tahay cusbad ay adag tahay in laga helo biyo in badan oo ka mid ah deegaanada ka mid ah Kismaayo markii la yiraahdo si kasta oo ceel 1 mitir ah loo qoday biyo ma laga helayo inta degmada Kismaayo ay ku fadhida in badan oo ka mid ah biyo ay adag tahay laga helo sidaa darteed dowladda Soomaaliya biyo waxay ka soo jeeday webiga iyo dowladda ka soo jeeday haddana dowladda Jubbaland wasaaradda biyo ay wado halka ay laga soo jeedo degmada afmadu gudaheeda marka tilaado ceelka gaaban mooyaane iyo lagta meelaha laga qoday maahana way adag tahay in biyo macaan laga helo magaalada gudaheeda
haway culays badan baa ka jira degmada ceel waa saas oo kale degmada badhaana inta ugu badan xeebaheedoo dhan laga soo bilaabo kaamboori ilaa kismaayo biyo macaan lagama helayo dad baa degan marka ninka buurgaaba ku nool kaamboori ku nool wuuba arkaa inuusan biyo heli karin marka in dadkii waxa weeye hadda wasaaradda biyuhu waxay wadaa waxaa biyo macaaneyn in laga sameeyo webiga badda agagaarkeeda in laga sameeyo ama celo loo qodo marka dadka in runtii waxa weeye loo sheego deegaanada Jubbaland oo khataraan haystay ka mid tahay inay ugu badan tahay cusbadu ceelasha in laga helanayo adag tahay xal dheer laga qodo ceel waaqdi ka jirtaa garbaharri bay ka jirtaa xataa ku degmooyinka webiga leh yay adag tahay in ceel waxa weeye laga qodo ceelal gaagaaban oo dadku ay ka faa'iideysanayaan u dhowmaan webiga maahan haddaad ka baxdo baar dheer xoogaa ka durugto haddaad ka durugto luuq haddaad beled xaawo inaad biyo heshaayo ceel laga qodayo culays badan baa runtii ka jira marka waxaan is leeyahay runtii dadka inaan ugu wacyigelin waxyaalaha hadda u tegaynay bay ka mid ahayd in dadka aan u sheegno khatartan biyo la'aanta ay hadda ay wajahayaan inay berrina imanay marka in loo diyaar garoobo oo dadku waxa weeye ay runtii meelaha biyo la'aanta ay xoogga ay saarayaan meelaha biyaha dadku inay deegaankooda mar walba xoogga inay saaraan aad oo maasanta Cabdullaahi Maxamed oo dhageysta toos khadka ugu jira yaan jecelnahay inuu su'aashiisa soo gudbiyo Cabdullaahi xagee joogtaa su'aashaadana maxay tahay Cabdullaahi waan ku soo noqon doonaa Axmed Cusmaan mudugna ka soo shaqeeyay iyo galgaduud bayaan jecelnahay inaan isla su'aashaasi weydiino dadka hadda biyo la'aanta ay haysatay abaarta ku jira wacyigelin noocay helaan waa mahadsantahay Cabdirasaaq Atosh wacyigelinta ugu muhiimsan oo dadku ay helaan meelaha baadiyaha ku nool waa midda fariimaha ay dawladdu dirto ama hay'adahan humanitarianka ama UN agencies ay diraan taasa ugu weyn ama local radio ha laga dhageysto maxay taane ama fariimaha ku soo dhacdo wacyigelinta aadka loogu baahan yahay oo ka maqan waxay tahay midda maxay taane local community dhexdeeda ay tahay in isku sameeyaan oo inay aaminaan in abaarta ay noqotay abaar frequency-geeda uu batay oo sida hore aan ahayn sida darteedna ay bedelaan wacyiga noloshooda fariinta hadda ay helaan kaliya waa early warning system oo in abaar la saadaalinayo ama fatahaad la saadaalinayo wax noocaas laakiin ma haystaan dadku wacyi ku aadan in ay maxay taane bedelaan qaabka u nool yihiin si ay livelihood-kooda u badbaadiyaan taa ayaa aad gaab xoog looga jira dadku sidii horeba inay hore rabaan u noolaadaan oo hadda meel in loo guuro taana ma soconayso marka wacyigelinta hadda bilowga waa early warning systemka oo asagana si hore haday u sharaxay baadiyaha aan si fiican loo gaarin access fiican u jirin hadda waxaa loo baahan yahay wacyigelin ku aadan dadku inay bedelaan qaabka ay u nool yihiin dawladduna ay ka caawiso barnaamij strategy diyaarsan oo oo adkaysiga aafooyinka haddii la helo adkaysiga aafooyinka oo dawladdu strategy diyaarsan dadkuna wacyigooda sare loo qaado ku aadan inay bedelaan qaabka u nool yihiin waxaan is leeyahay dhibaatadu intaan waa ka yaraan lahayd aad u mahadsantahay Atosh aad baa u mahadsantahay waxaan jeclahay inaan hal mar dadka xasuusiyo in wixii fariin ay noogu soo reebi karaan lambarada golis iyagoo isticmaalaya ama golis ama hormuud 280 oo lambarka gaaban WhatsApp-kana waa kan shaashada ku qoran wasiirka gargaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay la joogaan wasiir waxaan rabaa daqiiqad inaad ku soo koobto qofka haddii uu helo fariin degdeg oo khatar ka digaysa wax ma oga tari kartaa in xoolihiisa ay ku badbaadaan Atosh qofka haddii runtii uu helo khatar fatahaad biyo soo socda oo ku soo wajahan wax badan bay ka taraysaa runtii waana aragnayba dadku inay ay ka cararaan meesha iyada oo ay ka fogaadaan wax badan bay ka taraysaa beeraleyda caawinaysaa xoololeyda caawinaysaa waxay caawinaysaa dadka degan ee deegaanka webiga dadka u dhow fatahaadu inta badan ay saamayso iyo caawinaysaa weliba dadka hadda anaga reer Jubbaland oo kale wax badan bay runtii ka soo arkeen oo dadka wacyigooda sidii hore ma aha khatarta way soo arkeen 2024kii 2024kii liinadii jirtay wax badan bay dadka tustay marka fariimahaasi muhiim bay hadda yihiin inaan gaarsiino dadka oo aanu ka shaqeyno si u gaari lahaydeen wax badan bay runtii noloshooda ka badbaadinaysa aad u mahadsantahay Dr. Khaliif haye daqiiqad ama 2 daqiiqo isla su'aashaasi ustaad waxaan isleeyahay waxa uu loo baahan yahay waxay tahay wacyigelinta dadku way helaan laakiin ma xoog badno marka ficila loo baahan yahay mararka qaarkood ficila loo baahan yahay مثلا markii October oo kale wasaaradda
wasiir cabdiraxmaan oo kale ay ogaayeen inay waxaan soo socdaan meesha hadda safarada geday iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose uu ku maray wasiirka waxaan rabay inuu qayli dhaanta la bilaabo xilligaas oo kale ila kulanka dadka iyo abaabulka markaas oo kale waxaa laga yaabaa neefka xataa inuu meel biyo la gaari karay oo xoogaa jiir u lahaa marka waxaa muuqato gaabis dhinac walba ah dadkina uma dhaganuglo fariimaha gaaro oo lagu sheegay inay dhici karto khataro abaaro dadki fariinta uma dhaganuglo dowladaha iyo hay-adaha dadku ay fiirsanayaan ayaguna dhankooda gaabis ka yihiin marka waxaa la isku baraarugaa mar ay xeerii fandhaal kala dhaceen oo wax la qaban karaba ay yar tahay oo resource yar oo dowladda haysato ama hay'adaha hayaan meel ay aadiyaan iyo meel ay ku bixiyaan aysan aqoon dadkina ay noloshoodaba halis gashay marka digniintan xilliga hore ah meel ay martaba ee la bixiyey xilliga la bixiyo in lagu daro maxaa la jiray aadin iyo socod iyo wacyigelin iyo ficil baan maaragta ku waxayn lahaa atoosha wax yar haddaad iyo ogolaataan wax yaroo waxaan soo mithaal waxaan dhaata yaroo waxaan dadka la wadaagi lahaa waa ii muhiima ila tahay مثلا ضد اسك دغه تري وعي جلين لا سميهي واي hay'ado caalami ah ama musiibo wadan ku dhici lahayd dadkii deegaanka ay iska dhaga tireen natiijo ka dhalatay iyo dad inta la wacyi geliyay wacyi gelinta qaatay natiijo ka dhalatay inaan wax yar ma aragtay say muhiim u tahay aan la wadaagay daqiiqad ku soco waa soo koobaya tusaalaha fiican dad inta loo digniinta qaatay wadanka Netherland 1953 waxa ka dhacday saadaalin fatahaado in wadankaas ay harqin doonaan dadkii waxay u dhagan nuglaadeen in la qaato digniintii saynisyahanka ka timid loona dhagan nuglaado dadku markii waxay bilaabeen talada saynisyahankii iyo culimada saadaasha ay bixinaysay intaas kaliya laguma ekaanin waxa la yiri si qatarta fatahaada looga hortago mashruucyo degdeg ahna aan sameeyno kadib Delta Works program yiraahdaa la sameeyo bixirano waaweyn in la sameeyo si biyaha soo jabsan lahaa oo tuulooyinka iyo degmooyinka nugul gali lahaa qof walba marka dhismihii iyo cagafkii iyo programkii ka qayb qaatay barnaamijka asaga ahaa wuxuu badbaadiyay dhulka la dhahay Netherland oo dhan qatarta markaas taagneed inay uga badbaadaan bixireenadii markii qataraha dhamaadeen ilaa ay haddana waxa loo isticmaalaa wax soo saar beereed iyo dalxiis taas marka waa marka digniin loo dhagan nuglaada natiijada fiican oo ka dhalato dhanka kale 2010kii wadanka Pakistan bartamaha iyo waqooyiga Pakistan waxa ka dhacay doofaanada maasuunka la dhahay wacyi gelinay dawladda isticmaashay laakiin dadku ficilka si fiican uma qaadanin oo wadamada islaamka waxa laga yaabaa waxa la dhahaa qadartu in ilaahay uu u daayaan wacyi gelinta aysan u dhugnaanin 20 milyan oo dad ah yaa ku hooy iyo cunno iyo deegaan iyo caafimaad waa barnaamijka asaga marka labadaas barnaamij waxaan u soo kala qaatay haddii digniinaha la aqbalo natiijada fiican oo ka dhalan karto xataa mararka qaarkood in hab dalxiis iyo wax soo saar ay dhali kartaba iyo in bustal hogado natiijada xun oo ka dhalan karto intaas ku soo gabagabeyn la waa mahadsantiin aad u mahadsantahay wasiir cabdiraxmaan ay farta u taagan tahay wasiir aye وما صرت عطوش أنا وكتب الآن هرنتي بقشرنا هذا أنا ودني دجاجنا ده عربينا الصحة ما يصيرين تجنين تل وأنت قرأت هرنتي وأنا مثلا هاي تيم كبراروك إن حل جدا نكسو هذي أنا أتصل يوين إن شاء الله سيدر درجلي واحد أنا كتر كرتو وحاومي مصارين هذول من دجاجنا ومرنا واحد يسكت بريد كارمها جركاركا ياكتفيت جراينت جودية عبارة دجموينكا إن أنا وحوي ده تشينو فهاي لكن بشي تمنات ما نصوب إلا من الرنتي وحل الرابط كده يطلع إنه خطر جرتو أنه دجاجنا ده ينبضر رقم ذا وحي قرينت كصوب اللونك وحان رأي كلية إن إلى هذا حدنا حالة عبارة دجاجنا ده جبلان يسيبوا ذا الصومالي الرنتي ومرضك بمريسا سالاش حتى لفت هذا صوب حيسا قصة أبس جوجل أدو يرتا روك جوجل جبلان waxaan Google inay qiyas saadaara waxa jirta inta ugu badan geedu ka soo bilowdaa oo waliba wiiga saddexaad ee Abriil baa leeyahay jiraan dhaxla ama bisha wiiga labaad waxay hadda tilmaamayaan inuu roobku dhici karto inuu daaho oo Abriil baa roob la helin saan caadi naqaanada Google wuxuu oran jiray Abriil marka Abriil lafteedii baa waxa leeyahay roobku waa yaraani karaa khatartu inay sii jiri karto marka qiyaas hadda oo ku jiro jilaan هذا أبريل هذا حوي الرابكي ودي بدو خطر كيما
marka dadkeen waxaa ugu baaqanaa isku tashi iyo badbaadinta dadkeena inaan ka wada shaqeyno insha Allah aad baad u mahadsantahay wasiirka gargaarka iyo kahortagga masiibooyinka cabdiraxmaan maxamed dhiriq dowlad goboleedka jubbaland dr khaliif xasan xareed cilmi baare muqdisho khadka uga jiray iyo axmed cabdi cusmaan oo ah beeraley calafka xoolaha ka shaqeeya afgooy joogay dhammaantiin waad mahadsantihiin anigoo cabdirasaaq catoosha iyo dhammaan bahda baraarug waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo